maanta nin xamashi hadduu baawur kula soo firo wallaahi bakti kula soo firo waa ka daray sababtaa isagaa sidii neef baktiyo soo uray sababtaa hilib qayrin qofka cunay muxuu taraa waxaad arkaysaa maanta in badeeni la leeyahay xamashi baanu ka gadayna wax aqliga galana ma aha taasi idinkuna waxaad tihiin dadka la raba in aragtidaas ay bedelaan ardaydii wax baranaysaa tihiin waxa la idinku soo tababaray waxa ay dadkiinii hore u dhinteen oo ahaa axmed guray 1543 markii uu magaalada Saylac kitaabka ku akhrisanayay ninkiisii sheekha wuxuu dhigay waxa dilay Lablandangal in loo oran jiray oo xamashiya maalintaas uu go'aansaday inuu axmed guray ka tago kitaabka oo uu u tago meesha la yiraahdo ii sheeg error buu tagay imaam isagoo ah oo dad wata imaamkii markuu dadkiisa ka haystay meel kasta oo xamashi ku arko wuxuu noqon jiray nin ka soo dhalaala markaas loo bixiyay imaam axmed guray markaas dadkii la liidi jiray xamashadu gumaysan jireenna gumaysigu ka dulqaaday ilaa uu noqday markii dambe ninka aad ogtihiin ee Itoobiyada dhan ee arkaysaan ku kalifeynay hilibka cayrin cunto maanta nin xamashi hadduu baawur kula soo firo wallaahi bakti kula soo firo waa ka daray sababtaa isagaa sidii neef baktiyo soo uray sababtaa hilib qayrin qofka cunay muxuu taraa hilib qayrin qof cunay isagii baa sidii neef baktiyo soo karay dadkii iska hiiliyay dadkoogii baa tiin xamashina yeeli mayno taas waxaan markaan ka imaado dadka qaar markii la leeyahay reebaadiya tahay maxaa loogu caayaa baadiyaga magaalada ka fiican markii leego iyaga xoolale iyaga shaqaysta hal mid baa jirta oo qofka baadiyaha ka yimid dadka magaalada joogi ay reebaadiyaha ugu caayaan sababtuna waxay tahay baadiyaha boolis kama jiro baadiyuu meel la leeyahay war waa wadadan aad leedahay mar war ma nidaamkaagu waa sidan meel ay taraafik iyo baabuur iyo wax kala hagay jirma qofku meeshuu doono seexda meeshuu doono mara waa qof xorriyadiisa ku socda laakiin magaalada saas ma waxa la leeyahay meeshan meel laga gudbi kara ma lagu leeyahay baabuurta ku jiiriyo sug ma reebaadiya tahay ma iska socotaa way micneeyo meeshuu la socdo waa magaalada okay